kusoo dhawaada codka ubax oo aad muxuu kaga duwan yahay ganacsigaaga ee uga naxariis badan yahay kii hore dareen bay waday oo ah waxaan soo sameeyay waxaas baa loo baahay isbedel marka sideed uga gudubtay caqabadaha noocaas ee institutionalka ah ee waddanka ka jira dadaalka markas wuxuu ku xiran tahay qofka businesska la mise dadka lah in ganacsi la aasaasay sideeda way adag tahay weliba way kasii adag tahay marka magacaagu magac ajaanibi yahay ama magac muslim yahay oo faadimo lagu idhaahdo waxaan challenge-ka oon jecelahay markaan challenge arko waxaan jecelahay inaan wixii samayn karo maxaa dhacaysa haddii dhaqaale keliya loo galo idinku isku kalsoonaada iska dadaala sabar badan yeesha hoyfa ma nasiib ku keentay waxyaalo badan baa ka yaabi jiray intaan jirkaas ka shaqaynayay marka sabir yeelo faa'iido degdeg ah ka sugin waana inay jirtaa dhibaato uu xallinayo bulshada haddii wixii la ii sharxi lahaa aan business course galaa waxaa laga yaabaa inaan ka baqan lahaa isla waxaan isnaas fahmay assalaamu calaykum cawiis wanaagsan kusoo dhawaada codka ubax oo aad ka daawanaysaan astaan t v youtube-ka codka ubax amaba aad ka dhageysanaysaan adeega podcastka caawa waxay la joogtaa faadimo faysal cali faadimo waa ganacsato ka timid dalka Finland ganacsigeeduna runtii aad looga helay waddanka gudihiisa Finland kuna guuleystay abaalmarino fara badan tii u dambeysay ahayd abaalmarinta magaalada Espoo ee ganacsiga cusub sidoo kale hadalhayn badan adduunka oo dhan runtii ka bilowday oo ku saabsan shirkadda la yiraahdo Hoiva intiina shirkadda gelin horta ku soo dhawow codka wax iyo hargeysaba faadimo mahadsanid Ismaaciil waan soo dhawahay hargeysa ka waran waxa muddaad ka maqnayd dhowr jeer oo hore timid oo keliya oo markii saddexaad mise afraad markani markii afraad markan imika aad timid iyo markii ka horreysay maxaa isbedelay kaaga muuqday magaalada dadka dabeecadooda wax oo dhan markii hore masalaha horta maan dhaafin iminka horta si fiican magaalada u dhex galay maasha allah waxyaalo badan baa ku arka isbedela iyo waxyaalo badan isbedel u baahan haye maxaa ka mid ah ku isbedelka u baahan way muuqdaan bas kacad qofkii hargeysa yimaado baa fahmi karaa waa arki karaa soo wadooyinka ka mid ah qofku markuu in badan ka maqnaado waxay ku fiicantahay waxa weeyaan indho cusub buu ku eegayaa markuu yimaado kolba meesha uu yimid marka waxyaabaha aad sheegaysa oo dhan waa qaadanaynaa anigu imka local baanay by the way ka muuqata kusoo dhawo codka wax walaal mar labaad waxaan jeclaan lahaa bal dadka horta inaad fahansiiso shirkadaada la yidhaahdo Hoiva maxay tahay shirkadayda Hoiva waxa weeye shirkad kirayso shaqaalaha waxa weeye markaan kirada ka hadlay waxa weeye waddankan ka imi wuxuu leeyahay nidaam dawladda horta dadka shaqeeyaan waxay ka guraan canshuur marka waddankan oo canshuur ku leeyahay wax kasta arkaysa canshuurta ay lagu sameeyay badana qaybta waliba public ah marka dawladda hoose waxay ka mas'uul tahay caafimaadka meeshan magaalada dawladda hoose tahay marka magaalo kasta mise tuulo kasta waxaa ku yaala hospital mise clinic marka waxaa hospitalka mise clinica shaqaalaha waxay leeyihiin limit oo loogu baahan inuu gaaro for example aroortii waxaa laga yaabaa hospital weyn halkii ward inay ka shaqeeyaan 10 nurse hadday 4 ka xanuunsadaan waxa weeye hospitalka mise wardkaas wuxuu ku khasban yahay inuu positionkaas buuxiyo markaasay inagu naga dalbadaan shaqaalo private ahaan sida u buuxiyaan policyga haddii kale la ganaaxaya okay marka haddii ayna shirkadiinoo kale jeeri lahayn waxay ku khasbanaan lahayn shaqaale saayida ay siin lahaayeen contract caadiya marka culays bay ku noqon lahayd in shaqaale fara badan u joogaan oo ma garanaysaa mar walba ay reserve haystaan laakiin idinka markaad imika meesha joogtaan waa layd ka soo karaysanayaan si degdeg ma sidaas ma shaqaale horse way ku adagtay si loo helo maadaama fiilkaas uu adag yahay marka dadkana badana iyagoo degree haysta mise yaqaanaan shaqada maxay lahayd nurse-nimada ama ka baxaan mise maxay ahaydey meel kale aadaan mise horta hoosna uu dhacay waxba inay bartaan maxay lahayd nurse-nimada marka maxay maadaama shaqada uu adag yahay ee dadkana saas u jecleen private-ka ayaa badanaa laga helaa shaqaale
marka inaguna waxaan isku daynaa waxyaalo badan ka bedelno sida u jecaysiino inay ku shaqaystaan nursenimada. sidee laakiin calool adeegaas xaguu ka yimid inaad shaqaale akaraysaan bilay akra u weydaan shaqaalahaas? ma taas waxa way servicekan waan iibinaa, waa shaqaalihii meesha naga dalbanay shaqaale iyagunba lacagtood bixinaya iyo wixii de profitkiin wax kasta waa iska de business concept weeye. marka waxay ahayd iyagu waxay ku qasbaysan yihiin inay shaqaalaha keenaan, inaguna waxaan u helnaa shaqaale. iyagu waa de khasab inay helaan shaqaale, inaguna waan haysanaa Soomaa. shaqaalahana kireenayna waa shaqaalo de soo diiwaangeliyey oo systemkeena ku jiro oo markasta ama maalinta diyaar ah, mise waxaa laga yaabaa inuu anaga full noo shaqeeyo mise qof turturasho u tagay noo yimaado meelaha dee aan contract ku leenahay u tago. adiga laftaadu kalkaalisaad ayaa tahay, kalkaalisanimana waad ku shaqaynaysay muddo badan. maxaa kugu kalifay inaad ganacsigan abuurto? baahi nooceeya baad aragtay? waxaan ka shaqayn jiray caafimaadka ilaa 13 sanadood. marka waxyaalo badan baa intaan ka shaqayn jiray oo arki jiray oo u baahan isbedel. maxay ahayd ha ahaato sida loola dhaqmo shaqaalaha, waxay ahayd mushaar xumida, iyo waxay ahayd iyo xataa patientka inaysan helin maxay ahayd care fiican oo naxariis ku jirto. si yaroo wax looga dhaqmaa badanaa filmka laga hadlayo si dee bilaa naxariis ah. qofka waa ka muuqda inuu shaqada dee lacag uu sameynayo isagoo bini'aadam xanuunsanaya caawinaya, haddana kama muuqato caawimo dee si dee dhab ah oo naxariisnimo ka muuqato. marka waxyaalo badan baa ka yaabi jiray intaan aan fiilkaas ka shaqaynayay. mar walbana aan horta sina waa u adkaa, laakiin sina waxaan ka sugayay qof inuu wax sameeyo isbedel keeno. markaan arki waayay dee isbedel inuusan imaanaynin oo dee meel kastaan soo maro wixii isla maxay dhibaatooyinka baan la kulmayay. markuu koronada soo bilaabanayay islaha business sameey oo dee waxyaalaha la kulantay oo dhan aad ka bedeshid. marka saas baan u bilaabay. marka waan xasuustaayo anigu waan ogaa markaad bilaabaysay 2 sano ka hor bay ahayd. wuxuu ku beegnayd runtii 2 sano ka hor waqtigii corona oo corona adduunka ka dilaacay. weliba shirkado badan oo jiray oo suuqa ku jiray oo sanado badan joogay baa kacay. adiga sidii ugu dhiiratay waqti noocaas oo kale ah inaad shirkad cusub aasaasto? horta ilaahay markiis bay ahayd waqtigaas, laakiin shaqadan samayn jiray mar walba horta waxaan oran jiray waxa la madaba wax guumeysi hooyo la yaab jirtay markaan yiraahdo shaqadan waxa weey iska de guumeysi. marka aanoo de arkayo ona waxa leeyahay de silic baa ku iskaal nooleen anagoo nurse sama. marka corona wuxuu nagu sii noqday de silic de double ah. markaasaan maxay ahayd shaqadii oo awal baxmeed oo stress iyo pressure wax kasta de ka muuqda oo walibana bila qiimo dadka nama qiimeeyeen. markaas de wax qabadkeena wax de aan awoodin banaga sugeen oo de macquul ahayn dhinaca patients ka oo nagu qaynina dhinacna maxaa leeyahay booskeeni de oranaysa de shaqada si kordhiya waxa sameynaysiin. marka si inaan ahayn oo kale binaadin. marka waxay sidii bal maxaa leeyahay business furo. business kan de marka wuxuu iga hadlay wax side ah iska dhaqsiis meel casilin. markaasaan waxay ku dhawaaqayna sameeyay businesskii siduu u yiri socday corona horta markii hore markaan bilahi ugu horeeyay saameyn negative igu samaystay because contract ma ahin. marna contract horta mar waan helay contract laakiin dhaqso u dhamaaday. markuu dhamaaday waxay ahayd business hadda leedahay waxaa socda kugu socod biilayaal aad bixinaysid. markaan isniin ilaa jimci waxaan ka shaqayn jiray clinic meel iska day hospital clinic aan ka shaqayn jiray oo 8 ilaa 4. markii dambe alxamdulillah waxaan helay bishii 7 2020 waxaan helay contract oo gobol ah. marka gobolka anaa tagi jiray. marka tagi jiray waxa weeye waxay ahayd de ana iskireen jiray oo waxaan ahaa nurse oo kiro tagto oo meesha marka dad ay ka maqan yihiin ana soo sameyn jiray shaqada. marka waxay ahayd waxaan service-kan ka iibiyo maadaama anigu de shaqaynayo oo lacag u baahneen business ka gelin jiray.
saasan ku waday waxaan shaqayn jiray Saturday iyo Sunday waxaan shaqayn jiray 30 saacadood 15 per day Monday to Friday waxaan shaqayn jiray 8 to 4 marka between that time waxaan shaqayn jiray markaan weekdays ka shaqaynay waxaan shaqayn jiray marka lunch time ka leenahay iyo mise coffee break leenahay office-kan ku jiray ama business call bas ma jiray mise waxa la xiriir jiray customers cusub mise recruitment bas ma jiray waxaan isku daynaa shaqada si maxaa la diiwaangeliyo wax kasta oo business-ka ku samaysan jiray ku saabsan markii shaqadii tartiib si fiican bay u socotay markaan ka dayna hawsha meel fiican maraysa aan ku dhaqaynay saacilo dadaal badan baad runtii samaysayoo qofku dadku laga yaabo inay marka hore moodayaan in ay iron fudud tahay in fikirku intuu kugu dhasho deedna aad iska bilowdo laakiin dee process baad maraysaa shaqadaadii adigoo haysteen shaqo labaad haddana aad weekendka oo kale aad samayso sabtida xataa oo weliba u dhigantaa saacadihii full timeka ahda weeka caadiga ah waa dadaal runtii dheeri ah waxaad sheegtay in marka hore aad u arkaysay inay naxariistu ku yar tahay habkii hore loo shaqaynayay muxuu kaga duwan yahay ganacsigaagu ee uu uga naxariis badan yahay kii hore badanaa waxaa bilaa naxariista keenaysa markuu shaqaalaha heli waayo waqti uu ku kala kaalmeeyo ku caawiyo patientka haddii shaqada ku badan tahay marka waxay ka jaran tahay qofku wax heenayo iminka maadaama aan ka caawino customerka shaqaalaha sida u bixiya meelaha banaan marka taasna waxay practical waxa soo bixayso in waqti loo helo in waqti aysan ka jarnayn marka taasna qofka binaadamka haduu bilaa naxariis taas waa mid kale laakiin badan waxaan arkay inay bilaa naxariista keenayso qof markuu stress badan iyo pressure badan ku dhex jira marka in badan lama dhageysanaynin qofka shaqaalaha ah ee wixin baa xooga la saarayay shaqada iyo shaqada inay socdo shaqada socdo sidii dad mishiino kala dadku yihiin runtii meel dee hoosaad ka soo bilowday oo eber ah muddo 2 sano gudahood haddana waxaa dee 2 laabka uu ka badan yahay 8 laab uu ka badan yahay habka uu kordhay revenue-ga shirkaddu oo laga soo bilaabo $500,000 oo kale markay ahayd iyo imika ay $4 million marayso revenue-ga shirkaddu shaqaalaha oo 3,000 ku dhow yacni dadaalkaas siduu ku yimid in marka laga yimaado dee qadarka ilaahay dadaal noocyo ba geliseen 2 sano gudahood in shirkaddu halkaa ku gaadho waxaan ku keenay markaan businesska markuu sii balaarinayay waxaan arkay fursad inaan noqon karno business weyn oo calaamiya la garanayo marka waxaan qaaday weygaas other way wuxuu ahaa mid yaroo filan ku koobno iska dee family leeyihiin marka dabcan tallaabooyin baad qaaday oo ay ka mid ahaayeen maxay businesska dad baan kusoo biiray walaalaheeya waxaan bixiyey 50% baan dhiibay waxay ahayd walaalkay IT engineer iyo mid kale oo ah waxay ahayd chemical engineer ayaan maxay ahayd soo gelay businesska marka iyo nin advisor ah iyo markaan sii wadayna fursado badan iyo visionkan uu sii balaarinayay waxaa igala hami inaan ka dhigo hoyda company weyn oo caana oo dee adduunkana la yaqaano waxay sababto maxay kugu Finland weyday Finland waayaad u doonaysaa inaad waxaan arkay waxaan horta businesskayga markasta wuxuu ilaaha unique markaan sidaa u sameynay inkastoo fiilkaas wax la mid ah hore loo arkay way buuxaan laakiin anigu markaan sameynay habkan u sameynay hab aan ku qanacsanaa u sameeyay waxaan jeclahay ayaan ka dhigay sidaa u sii balaarinay sameynay wuxuu la noqday wax hore loo arag oo ka qurux badan shirkadaha kale una adduunku baahan yahay sax runtii waliba Finland wadamada iyo Sweden oo kale iyo in ganacsi la aasaasa sideedaba way adag tahay waliba way ka sii adag tahay marka magacaagu magac ajaanibi yahay ama magac muslim yahay oo faadimo lagu yiraahdo marka sideed uga gudubtay caqabadaha noocaas ee institutionalka ah ee wadanka ka jira waa runtaas horta way jirtaa laakiin anigu faadimo ahaan waxa challenge-ka aan jecelahay markaan challenge arko waxaan jecelahay inaan ka gudbo inaan wixii sameyn karo marka meehi qof la niyad jabin karo haddana wixii aan garanayo
waan isku dayaa haddii hal albaaba laga soo xiro waan ogahay albaaba kalena jiraan marka maadaamaan garanaya inaan dadka kale waxba kalidanin waxaan rabay inaan wixii aan dabacay inaan sameeyo inaan ku guuleysto marka dee albaabkaas waan soo qaraacay saas maan sabrin maxaa dabada kaa waday maxaa ku riixayay dee inaan maxay ahayd isbedel sameeyo waxaan u sameynayay waxaan rabay business dadka maxay ahayd dadka uron company dadka uron waliba maxay shaqaalaha maxay ahayd oo dadka xaqooda iyo qiimahooda iyo wax kasta siiyo marka maadaamaan garanayda waxaan sameyn wax wanaag yahay oona loo baahan yahay oo dadna waxba ku geysanaynin wala xalaal yahay si kasta markaan wax ii diidi karo mise wax reason lagu diida ma arkayni caawimo kala duwan oo niyad wanaaga iyo niyad dhisabaad ka heshay waalidkoo kale tusaale ahaan caawimo noocyadeed hooye ka heshay hooyada wallaahi markii hore waxay ahayd iyada horta igu bushkaraysay inaan business sameeyo markii hore ma garan inaan ku sheego waxaan rabay foundation aan sameeyo inaan dadka soo caawiyo masaakiinta anaa waxba haysan day shaqaalaha markaas ay igu tiri adigu hooy barkar waxa meel iska soo saar dadka caawista marka taladaasaan qaaday marka alxamdulillah iyo waxay ahayd iyo walaalkay yar Imaam Cali oo isagana markaas casilay shaqadii hore iska casilay hooyo marka warwar yar baa galay waxay sare Faadimo hadday casisho waqti xun weeye corona time weeye ama shaqo weyda walaalaha ku yeelad ma Faadimo hadday wax samayso way ku guuleysataa iska aamin marka labadaas baa labada ugu horeeyay iyo aamina oo ay garab istaagay in laakiin qofku uu ku dhaqaaqa hawl inta badan waxay ku xiran tahay fikirkiisa ama mindset-ka wax la yiraahdo sideed adigu marka hore aad taa u program garaysay alxamdulillah horta anigu binaadam waxaan ahay optimistic baan ahay waxay ahayd qof isku kalsoon waan ahay hadda wixii jecelahay aan maxay ahayd aan aaminsanahay waxaan aaminsanahay wixii inaan soo tijaabiyo haddaan ku guul daraysto waa caadi at least wax baan igu soo kordhay the failure kama ba aaminsanayn waxaan aaminsan wax kasta oo la sameeyo hadduusan sidii la rabay noqon waayo wax baa kuu soo kordhay wax khasaare horta ma aaminsanay marka maxay ahayd mindset-kayga si buu u toosnaa si mafahamte inkastoo dad badan dadka waliba markay ku fahmaynin meelaad ka socday waxaad arkaystay waxaad rabtid waxay opinionkooda isleeyihiin inay wixii aad rabtay inay kaa burburiyaan mise inay kaa hor istaagaan marka anigu alxamdulillah sidaasna stubborn baan ahay ma dhageystay hadda wixii aaminsanahay marka iyo waxaan ahay risk taker haddaan wixii riski qaado haddaan khasaaraan diyaar baan ahay marka waxyaalaha haddii la oran kara waxaan haystay mindset maxaa lahaye qofka dee ganacsiga oo maxaa lahaye dee horumar geyn karo qofka hadduu shaki leeyahay mise ka baqana khasaarada mise dadka opinionkooda uu dhageysto banana qofkaas ma guuleysto marka si aad ugu adkaysato go-aankaaga laftiisa marka hore aad u xisaabisay waxaa iman karaa khaladaad ka iman karaa yani calculation baad samaysay dhammaystiran kadib baad ku dhaqaaqday mise waad ku dhaqaaqday wixii kaaga yimaadana diyaar baad u ahayd anu wax calculation aad maba samayn business plan isoo daa business plan waxyaalo waxaa jira iskuulka lagu baro wixii difficult baa laga yaabaa hadda haddii wixii la ii sharxi lahaa aan business course gali lahaa waxaa laga yaabaa inaan ka baqan lahaa isna waxaan it's not for me laakiin alxamdulillah waxaas maba samayn wixii dareen bay waday oo waxaan soo sameey saas baa loo baahay isbedel wax kastana waxaan kusoo bartay Google waxaa loo baahan yahay form kala buuxinayo marka saas oo aan laakiin waxaan ku fiicanahay aan badanaa Soomaalida ku arkay Soomaalida qof un be information kasoo weydiinay heblow waxaad samayn kartaa oo caawimo ana laakiin alxamdulillah wax kaste waxaan wixii jiray meesha office-ka waxyaalahaas formka laga buuxsado toos baan u sheegay waxaas barbaa okay kan formkan soo bixin jiray qofna ma ku dhahay heblow wax halkan ay bixin sidee baa u samaysay waxa marka haddii aanad xataa stepskii marin caadiga ahaayee iskuullada lagu dhigaya business planka la sameynayay waxyaabahii calculationkii kala duwanaa haddana successful u noqday really wax lala yaabo yacni sidee baad haddana aad ugu adkaysanaysay waxyaabahaasoo dhan waxaa loo moodaa inaad hubtay inaad guuleysanayso waxaan horta anu waxaan hubay inaan unique ahay marka alxamdulillah
maxay ahayd guul horta markasta ilaahay baa keena ana waxaan isku diyaariyay markaan round loo hadlay 5 sano inaan shilin ka helin waxba iska shaqeeyo something marka wixii markuu ilaahay ku wado waxaad mafahad wal daacad u sameynaysid waliba businesska hadad u samaysid purpose oo heen lacag markaas successful gaaraysaa ana purpose-ka waxa dadka caawi Soomaali garan marka alxamdulillah dadkiina ilaahay wuu jeclaysiiya iminka samaacad fiican ba ku leenahay marka hore maxay ahayd hadda hooyba dadka faadmo yaqaana markay dadka iga arkeen maxay ahayd inaan qof daacad ahay naxariis badan wixii de hooyba wuxuu yahay oo dhan valueskiisa oo dhan aniga muuqata haddaan laakiin values iska qoqor lahaa aan kasoo barto bugaagta oo lagana qof iimaan leh ahaan lahaa dee dadka way arki lahaa soo maaha marka alxamdulillah marka wallaahi waxaan laakiin sidan inuu san bobsis u noqonayo dee waxay ahayd successful man filayn muxuu ahaa wixii u dambeysay aad lagugu abaalmariyey Expo magaalada waxaa lagu abaalmariyey dee muxuu ahaa dee ganacsadada sanadka waxay arkeen sida ugu sida bobsiska aan maxay meesha maanta gaaray aan u gaaray oo maxay ahayd waxaan ka shaqaaleysay dad badan oo ku jiraan dad badan oo maxay ahayd badan aan shaqo siino minority u badan iyo maxay ahayd maxay kala ahayd ilaa 3,000 oo qof in ku dhowba shaqaale oo way la yaabeen iyo waliba habka uu waday maxay had for example bishii sanadkii hore bishii 12 ilaa 12 laba week almost laba week oo campaign ma sameynay oo maxay marketing oo meel walba mool sida lagu soo dhadhajiyay maxay hooyba marka taasna waxaan u dhaqamanay siday kambaniyada waaweyn u dhaqmaan anagoo de shalay soo bilaabna marka moves wala yaabeen taas laakiin waxay indhaha waxay soo jiidatay haddana dadka la dhaha big fish kide big fish big fish soo jiidatay marka de guuldarro ma ahayn waxaad moodaa waxaa de marketing waqti fiican geliseen 2 week oo keliya laakiin haddana natiijadii aad doonayseen buu keenay iyo tuka badanba dhanka kale marka la eego qofku marka uu hawl u wado guul ka gaadho sidan oo kale inta badan dadku markaasun bay arkaan markaasun baa la odhanayaa qofkaasi guul buu gaadhay faadimo guul bay gaadhay ma arkaan inta badan intuu qofku silcayo dadaalka uu gelinayo hurdo la'aanta ku dhacaysa xitaa dadka qaar waxay ka odhanayaan waxaas waa nasiib ama nasiib qofkaasi ku helay hooyba ma nasiibaad ku keentay nasiib waxaan ku keenay dhidid alxamdulillah laakiin de wuxuu ahaa hooyda waxay ahayd insan u sameynayay shaqo umaan arkayn wuxuu ahaa more like hobby habeen umaan waan shaqaynayay alxamdulillah waxaan ku noqday haddaan isticmaalay obsession wixii markaad jeceshahay oo aad sameynaysid uma aragtid inuu shaqo yahay marka maxay ahayd iyo waliba anigu markaan wax ku dhawaaqo waxaan jeclahay in wax qurux badan quality fiican leh wax kasta ka muuqda waad xasuustaa berigaas manay hadda conference-kii marka alxamdulillah sidan habkan u sameeyey waan ku qanacsanahay iyo de shaqo badan waan geliyay waqti badan horta waan geliyay oo lacag hadda lagu tirin karaynin marka maxay ahayd marka lama oran karo waa nasiib wixii ku xiran tahay qofka de maxay ahayd de qofka horta meel gaara successful badana waa dad soo jabeen oo soo dhidideen maxay habeenkii shaqo soo jeedeen marka ereygaas waa khalad in loo isticmaalo markaas qof iska seexday oo aan hawl badan qabanin baa hadhow oranaya waa nasiib khalad taas waa khalad waxa jirta intii aad maraysay hawlahaas oo dhan intii aad dadaalka ku jirtay intii aad hurdo la'aanta aad ku jirtay bilowgii shirkadda oo dhan waxa laga yaabaa inay jiraan talooyin aad jeclaan lahayd inaad ogaan lahayd markaa hore oo imika aad ogtahay laakiin aad jeclaan lahayd in cidi kuu sheegi lahayd bilowgii oo kale for example talooyin nooceeba ayaad jeclaan lahayd aad hore u ogaan lahayd horta waxaan jeclaan lahaa horena u bilaabo hadda 2 years ago aan bilaabay marka markii hore waxa qofka successful-ka mise meel gaaro waxaan u arkay de wax anigu igu dhici karaynin marka
waxyaalo badan oo dee iskuulka ay naga dhaadhiciyaan badanaa ayaan hadda dib u fahmay inuusan dee inay jiraan dee ways kale markas maaha keliya sida iskuulka lagu baray waxaa jira wax short way oo hadda for example maxay ahayd waxaan fahmay qofka wuxuu jecel yahay inuu ka fiican yahay waxa dee inuu ka fiican yahay wuxuu soo bartay iyo habka iskuulka horta wuu fiican yahay of course in iskuulka soo dhigto laakiin marmar waxaa jirta waxyaalo aad ku soo baranaysid nolosha aad hadhowna ku shaqaysan kartid oo maxay ahayd markaad waxyaalaha saas oo kale ma sheegi kara laakiin waxaan ka wadaa dee saas oo kale waqti hore haddaan waxaan jeclaan inaan waqti hore bilaabi lahaa marka ma jirto baad leedahay waddo keliya wax loo maraayo waxaa jira waddooyin kala duwan qof baa hadda akhrinaya mise dhegaysanayo wuxuu malaynayaa waddadan maray exactly maro waddadan anuu ilaahay qoray hadduu roodkan soo maro soo sameeyo exactly waxaan sameeyey waxaan hubaa inuu ku guuleysanayn marka waxaa fiican horta wax kasta inuu adig ka yimaado wadadaada waxa weeye sida nolosha qof kasta hadda lama oran karo Ismaaciil qof tabtaada oo waxaad soo martay nolosha oo dee weygaaga u socdo soo maaha qof kasta noloshiisa waa unique weeye marka sida anu u soo baxay wax kasta waa wuxuu ilaahay isbeeyo waa weygay waa buugayga marka qof kasta buug leeyahay waxaan oran lahaa idinku isku kalsoonaada iska dadaala maxay sabar badan yeesha marka insha Allah ilaahay tala saarto gaaraysin waxaad jeceshihiin ku dadaala waa inuu noqdo waxaad jeceshahay haddii uu kaa noqdo qofkaasaa sameeyey adiguna samee maya waxaa Soomaalida horta taas way ku badan tahay qofkii aad waxda arkaysaa qof kula tartamayo wixii shalay ku soo sameeyay soo bilaaba sameysay oo filkaas nin shalay soo xamaalan nin ka shaqeyn jiray maxay ahayd meelahan warehouse-ka oo haddana maanta wixii sameynaya oo kareenayo maxay nurses ka yaqaan marka waxyaalaha fiican inaad adigu naftaada waxaad jeceshahay sameysaa lacagna ha raadsanina waxaad adigu ku kalsoon tahay ka daalayna oona ku noqda hobby inaad sameysaa ugu dambeyn waxaan jeclaan lahaa qorshahaaga Hoyva muxuu yahay maxaad higsanaysaa visionkaaga waa maxay visionkay waxa weeye horta Hoyva international ka dhigo maxay oona listed company ka dhigo taasna waxaan ka dhigaysaa shirkad weyn oo hadana shirkadda la iibsan karo ilka iibsan karaa ka wad dhaafaysaa xuduudaha Finland imika insha Allah sanadka dambaan rajaynaa inaan dhaafno inaan Scandinavia Germanka ayaa isleenahay laakiin balanska horta labada sano ilaa 2024 saas way maxay balankeenan laakiin wixii ka dambeeya waxa laga yaabaa inuu sii balaadho xadka go'an ku jooga mise xad ba ma lihid xadkay wallahi Hoyvahan of course had been leeyahay laakiin xad kala jiro oo Faaduma leedahay oo xad leh ka muhiimka waana mashiinka wada Hoyva saasan kala okay dad badan waxa jira isku dayay inay ganacsiga sameeyaan ama ba hawlo kala nolosha doonayeen inay sameeyaan hadday noqoto dhanka fikirka qofka ama mindsetka hadday noqoto dadaalka iyo shaygan dadaalka uu gelinayo hadday tahay inuu jacaylka uu qabo talo nooceeya baad siin lahayd qof noocaas oo kale oo imika bilaabaya reason-ka aad u sameynaysid muxuu yahay ma lacag baa inaad raashin ka heshid mise wax isbedel ha ahaado xaafad baad degantahay xaafad waxaa ka maqan dukaan waxaa dadkan adeeg bay ahayn oo u sameynaysaa it means dadkaad u adeegaysa maaha marka horta waa purpose-ka sameynaysid waa ahaado wax fiican oo macquul ah oo adig kale ku koobanaan oo dadka ku xilay ilaan dad ba business-ka markasta qof baa wax ka iibsanaysa maaha oo service marka taas waa muhiim weeye mid kale waxa weeye maxay ahayd ha ka daalin iska sabr waa caadi maxay ahayd haddaad dibsadid mamaro of course way jirtaa inaad daashid mis wax kuu soo kordho aad maxay yara dibsadid laakiin waxaad xasuutaa waxa weeye waa sida flower-ka kale biyaad ku shubaysaa maanta oo dhan tartiib uu soo baxayaa businesska uu soo kacayaa marka waa qofka inuu iska sabraado uuna ku dashanin waxaas businesska marka sabr yeelo faa'iido degdeg ah ka sugin waana inay jirtaa dhibaato uu xalinayo bulsheed maxaa dhacaysa haddii dhaqaale kaliya loo galo
waad ka daalaysaa mise hadduu ku socdo xataa quality ka muuqanaysaa waxaad arkaysaa businesskii oo socdo waxba laga bedelinin qofkii dee salaha inuu lacagta shaqeeyo uuna gelinaynin uuna dadka dhegeysanaynin waxyaalahan ku arkay waxaa fiican inaad ku celcelisid ha ku qancin ani xataa hadda anoo kale hadda dadku waxay arkaan inaan successful ahay laakiin haddaan idin meeshaan rabay muddo dhawiba heerkaan rabay wanogni xad ma lihid halkeed qancaysaa markaad gaadho waxaan qancayaa markaan Afrika oo dhan wax u taro insha Allah hadii beedma insha Allah Faaduma runtii aad iyo aad baad mahadsan tahay inaad nagala soo qayb gasho codka ubax oo aan ugu talagalin inaan ku dhiirigelino dadka dhalinyaro iyo waayeelintaba inta ku dhageysanaysaan waxaan rajaynayaa runtii inay ka faa'iideystaan ereyadaada waad noqonaysaa dhawaan laakiin waad soo noqon doontaa insha Allah mar dambe waxaan rajaynayaa marka dambe soo noqotana iyadoo intan kasii weynaatay inaan kula sheekaysano haddii beedma shirkadaada hoyva codka waxaad buu kugu mahadcelinaya aad iyo aad baad mahadsan tahay idinkuna waa mahadsantihiin daawadayaal dhegeystayaal wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu